tobankan u dambeeya bisha iyo qofka muslimkaa sida loo baahanya inuu ka faa'iidaysto. awalan ramadaan waa fursat alcumr. haddii ilaahay ramadaanku gaadhsiiyo waa fursad aada u qaaliya. haddaad tobanka dambe sii gaadhana waa fursad tii ugu sii fiicnayd. haddii habeenkaa ku jira leylatulqadriga alla ku waafajiyana dee waa cimrigaaga wax ka badan oo cibaadaa. qofna cumrigiisa dadkeennan caadiga kama suurtagal aha dhowr iyo 80 sano inuu cibaado unu fadhiyo aanu wax kala qabanin. habeenkaasi cibaadadaad samaysaa saasay la mid tahay. sidaa awgeed buu nabigu calayhi salaatu wasalaam agtiisa waxaa lagu soo qaaday oo war baa loo keenay saxaabadu wadwadeen oo ah axadu saxaaba wuxuu ku riyooday 2 nin oo soo islaamay oo isaga la soo degay oo dabeetana dagaaladii nebiga ka qayb galay oo midi dagaaladii ku geeriyooday oo kii kalena sanad ka dambeeyey sanad dabadii uu dhintay oo markaa intuu ku riyooday iyadoo jannadii looga yeedhayo. kii dambeed dhintay ayaa loo hor yeedhay kadib baa loo yeedhay haddana kii horreeyey. anigu markaan soo kacayna waxaa laygu yidhi adiga weli waktigaagii maaha. sheekadii buu saxaabada u sheegay. dabeetana waxay la yaabeen ninkii shahiidka loo tirinayey oo weliba lalahaa markii hore nin dadaal badan buu ahaa kii ka dambeeyey inuu haddana ka badan yahay. nabiga calayhi salaatu wasalaam baa ku yidhi miyaa la yaabantiin arrinta haa bay idhaahdeen. wuxuu ku yihi alaysa qad makatha hada bacdahu sana oo kani miyaanu ka hore sanad ka dambeyn buu nebigu yidhi. haa bay idhaahdeen. oo ramadaanna sooma soo gaadhin buu nebigu yidhi oo intaasoo salaadoodna masaajidkan kuma tukan sanadkii. haa baa la yidhi. wuxuu nebigu yidhi kaa hore iyo kan dambe inta cirka iyo dhulka udhaxaysa in leeg baa udhaxaysa. waxay culammadu yidhahdaan waxyaaba ugu weyne uu nebigu tilmaamay waa salaadihii masaajidkiisa lagu tukaday iyo ramadaan. dee ramadaan oo habeen leylatulqadri ku jiro oo haddii ilaahay waafajiyey dhowr iyo 80 sannadood oo cumriga u dhiganta. waxaan xadiidka usoo qaaday inaan haddii tilmaamay inay fursad tahay in la dayaco marnaba aanay ahayn. fursaddaasi waxay u baahan tahay sidii looga faa'iidaysan karee kasta in looga faa'iidaysto. waxa ugu badan ee lagaga faa'iidaystaana waa in cibaadada iyo daacada ilaahay iyo qurbadiisa dadaal badan lagu bixiyo. walidalik bay caaisha xadiidkii imaamu muslim warinayo waxay nebiga ka tilmaamaysay kaana rasuulu llahi sala allahu calayh waalihi wasalam yajtahidu fi lcashri alawaakhir maa laa yajtahidu fii gayri. tobankaa dambe wuxuu dadaali jiray waxaanu intiisa kala dadaalin. yacni dadaalkiisu wuu ka badnaa. xadiiska saxiixeynka ku yaalana waa ka ay tilmaamayso kaana nabiyu sala allahu calayh waalihi wasalam idaa dakhala alcashru shadda mi'zara wa axyaa leyla wa ayqada ahla. haddii tobankani soo galaan bay caaisha leeday tobanka u dambeeya ramadaan hadday nebiga u yimaadaan nebigu sidiisaba 9 ramadaan buu soomay. tobankaa u dambeeya haddii ay soo gaadhaanna bay tidhi shadda mi'zara guntiguu adkaysan jiray ama halkay soomaalidu tidhaahdo guntiguu dhiishas kaga dhigay. markaad shaqo rasmiya aad rabto inaad si xoogan u qabato waxa ugu horeeya aad qabataa waxa weeyaan inaad maryaa adkaysato si aad shaqada si fiican ugu qabatid. kaa culimmada badh baa ku fasiray oo le yacni cibaadada dadaalkeedu badin jiray markaa weeyaan. culimmada badhkoodna waxay ku fasiraan masaladii ictikaafkiiyo lasii xidhiidhaysay ee ah haweenka inuu ka dheeraan jiray oo haweenku ka dheeraan jiray macnaheedu waxa weeyaan markaa cibaadaadku haweenkaaga inaad u tagtaa nebigu wuxuu ku tilmaamay waa fii badci axadikum sadaqa ajar bay ahayd. laakiin macnaheedu waxa weeyaan tobanka kan cibaadadu siday u kala ajar badantuu mudnaan u kala siin jiray. marka waxyaabihii mubaaxaadka ahaa ama cibaadaadkii fadligoodu aanu badnayn intuu ka tago oo ay ka mid ahayd haweenka iyo mucaasharadoodu ayuu wuxuu u baxayay maxay cibaado maxda oo ah
inuu ilaahay subxaanaه watacaala u banbaxo. idan waxaa lagu tilmaamayaa nabigu calayhi الsalaatu wasalaam guntigu adkaysan jiray. siiba riwaayadda muslim bay saa usii sharxaan oo ah wajadda washadda miisarahu, ay leeyihin wajadda fi طaacaat ayuu ku dadaali jiray, shadda miisarana markaa waxay ku fasiraan tan dumarka inuu ka dheeraan jiray. ayan kaanat saa doontaba axaadiista u fasiro, labada macnoba waa laba macnoo jira oo nusuusta kaleba tilmaamayso inuu nabigu calayhi الsalaatu wasalaam cibaadaadkaasi si gaara ugu dadaali jiray. wa axyaa leyla, habeenkiisana wuu nooleyn jiray. wa ayqada ahla, haweenkana wuu toosin jiray. axyaa leyla, habeenkiisuu nooleyn jiray. oo maxaa habeenka nooleeya lagu nooleynaya, ama habeenka intee buu nooleyn jiray? labaduba waa la isweydiin karaa. ugu horeyn caaisha waxay leedahay walaa aclamu nabiy اllahi salى اllahu alayh waalih wasalam qara'a alqur'aana kulahu fi leyla walaa salaa leylaة ila الصubx walaa saama shahra kaamila gayra ramadaan, rawaahu muslim. iyadu waxay tilmaamaysaa anigu garan maayo bay tihi, waa iyada ogaalkeedi. anigu garan maayo nabiga calayhi الsalaatu wasalaam oo qur-aan akhriyey habeen ku dhameeyey, ama habeen oo dhan tukada ilaa subax laga gaadhayay, ama bil soomay dhammaystirankeeda aan bisha ramadaan ahayn. macnahaasi waxaa laga fahmayaa nebigu calayhi الsalaatu wasalaam habeenkiisa wuu nooleyn jiray. horta habeenka waxaa lagu nooleeya waa cibaada, oo cibaadadu waa waxa ugu badan ee aayaadkan ay ka waramayaan. waayo nooleyntuba waxaynu arki doonaa nebigu calayhi الsalaatu wasalaam siduu u tilmaamay. abu dar ridwaan ullaahi calayhi saxaabiga la yidhaahdaa, xadiid isagana sheekh alalbani leeyahy waa asaxay, ay warinayaan abu daawuud iyo tirmidi iyo nasaa-i iyo ibnu maaji iyo taxaawi iyo ibn abi shayba iyo culamo badan uu ka soo aroorinayo, saxiixna uu ku tilmaamayo. waa xadiidka abu dar tilmaamayey waanu soonnay oo nebigu salaadna ma tukinin. markii 7 harhsanayd, 7 habeen yacni ramadaan markay ka harhsanayd ayuu kacay oo na tukiyey. haddana namuu tukinin kuwii ku xigay. markii thuluthul uu harhsanaa ilaa iyo thuluthu leyl buu na tukinayay buu leeyahy habeenkaa hore. habeenkii 6aadna ma tukinin, waa xagga dambu ka tirinaya. habeenkii 5aad marka yacni 5 ka harhsanayd bisha ayuu na tukiyey. habeenkaa dambena ilaa shatru leyl buu na tukinayay, ilaa habeenka bartankiisii. markaasaanu ku nidhi buu yihi nabiga calayhi الsalaatu wasalaam yaa rasuula اllahi low nafaltanaa baqiyata leylatina, maad cibaadada noogu wadeed caawa habeenka o dhan maad ka dhigtid. nabigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu tilmaamay farsamo kale, inahu man qaama maca alimaami xataa yansarif kutiba lahu qiyaamu leyla. ninkii imaamkiisa la tukada sunnadiisa taraawiixda wixii la mida, imaamka la tukada ilaa iyo imaamku uu ka tegayo salaada dhammaysanayo. waxay yidhahdaan culammadu xataa haddaad habeenkii kacayso imaamkii aada la tukatayna witirsanayo, wax fiican isaga la witirsato, inaad isaga ka tegin intuu salaada dhammaynayo. salaada markuu dhammeeyo ayuunbuu xadiidku kugu dabaqmayaa bay leeyihin. ninkii imaamkiisa la tukaday ee salaadii la dhammaystay, kaasi waxaa loo qoraa buu nabigu yihi kutiba lahu qiyaamu leyla, habeenkii oo dhan taagitaankii baa loo qoraa. wuxuu leeyahay habeenadii ku xigay haddanana ma tukinin, laakiin markay 3 habeen ka harhsanayd ayuu haddana nebigu salaad noo kiciyo oo na tukiyey. xataa reerkiisa iyo haweenkiisana wuu u yeedhay habeenkaasi. dabeetana habeenkaa dambe wuu nagu waday buu leeyahy ilaa iyo xataa takhawafna alfalaax, ilaa aanu isnidhi suxuurtii. raawiga xadiidkaa weydiinaya wama alfalaax mala suxuur, ilaa aanu isnidhi suxuurtiiba weydinka tegi doontaa. yacni habeenkaa 3aadna wuxuu tukiyey salaad ka dheer. habeenkii hore thuluthu leyl buu tukiyey, habeenkii kale uu tukiyeyna wuxuu tukiyey nus, habeenkana wuxuu ku waday ilaa iyo suxuurtii aanu isnidhi weydinka tegi doontaa. kaasi waxay tilmaamaysaa sidii uu nebi moxamed habeenada u nooleynayay, ama axyaa leylahu
min xayti الzamaan marka laga eego. أحيا الليل إحياء الليل waxay culamadu leeyihin waa bilcibaada kuliha, waayo qofkaan cibaadaysanaynin qof dhintay weeyaan. qofka hurdaana bay yidhaahdaan dee waa meyd, waman kaana maytan faaxiyaynaahu ayuu ku jiraa. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. وكي رواية بخاري tilmaamaysa رواية إمام مسلمنا مثل البيت الذي يذكر الله فيه. إمام البخاري wuxuu leeyahy ninkii ilaahay xusa iyo kaan ilaahay xusin mithaalkoodu waa wax nool iyo wax dhintay. إذن إحياء الليل waxay leeyihiin waa ذikr الlah أيا كان، أما الصلاة ha noqdo ama wardi ha noqdo ama ha noqdo maxaa la yidhaahdaa quraan akhris ha noqdo, wax allaaliya wixii cibaadaadkaasee la sameeyo waa qiyaamu leyl, waa ixyaau leyl. walidalik baa fuqahada qaarkood qiyaamu leylka waxay ku tilmaamaanba wixii cibaada un loo kaco wuxuu doonaba ha noqdee, haddaad soo toosto oo wardido ama quraan akhrido ama kan qiyaamu leyl waa la odhan karaa bay leeyihin fuqahada qaarkood. habeenkoo la kaco idan wuxuu habeenkii ku nooleyn jiray cibaadadaasi ah salaada, oo ta qur-aankuba dee ku ammaanaya dadkii wanaagsanaa. tatajaafa junuubuhum can ilmadaajici yadcuuna rabbahum khawfa waطamaca wmima razaqnaahum yunfiquun fama kaanuu qaliila min alleyli ma yahjacuun wabilasxaari hum yastakfiruun. ilaahay subxaanaه wa tacaala dadkaa jannada looga yeedhay wuxuu ku tilmaamayaa habeenkii inay in yar seexan jireen ama dhinacoodu inuu hurdada diidi jiray ama ay tukan jireen. saxaabadii nebigana ilaahay qur-aanka markuu ku ammaanayay nebi maxamed risaala ammaan ugu filan, maxamedun rasuulullah baa ilaahay yidhi, in alla doortay oo basharka o dhan laga doorto rasuul laga dhigay, ammaan taasaa loo tilmaamay. ama saxaabada ilaahay markuu tilmaamayay wاladiina aamanuu wاladiina macahu ashidaaء calى اlkufaar ruxamaaء baynahum taraahum rukacan sujada yabtaguuna fadla min allahi waridwaana. ilaahay wuxuu ku tilmaamay saddex sifo oo mid ay tahay cilaaqaday muslimka la leeyihiin, midna calaaqaday gaalka la leeyihiin, midna calaaqaday ilaahay la leeyihiin. saxaabada sifadoodu wax weeyaan gaal niman iska dhiciya bay haayeen, meel saaray ashidaaء calى اlkufaar. markay muslimka timaadana ruxamaaء baynahum baa ilaahay yidhi. ahlu sunna waljamaaca waxay yidhahdaan sifadoodu jamaacada la sheegayaa waa markay naxariisi jirto un bay yidhahdaan, sunnadana waa in ariiqii la raaco. ruxamaaء baynahum bay ahaayeen kuwo isu naxariista. ama xidhiidhka ilaahay la leeyihiin taraahum rukacan sujada yabtaguuna fadla min allahi waridwaana baa ilaahay. waxaad arkaysa inay hayihiin kuwa rukuucsan oo sujuudsan oo raadcaynaya ilaahay fadligiisa subxaanaه wa tacaala. idan ayuha alaxiba, nebigu calayhi الsalaatu wasalaam ninkii doonay inuu manaasisha qolada sare tago oo nebiyada iyo saalixiinta iyo shuhadada iyo kuwa inuu la rafiiqo, saxaabigii yaraaya rabiic kacb ibnu rabiic markii uu nebiga weydiistay, nebigu wuu shaqeeyey, dabeetana nebigu wuxuu ihi maxaan ku siiyaa, abaalgud buu rabaa, i weydiiso. xadiidka riwaayadkiisa waa soo tashanaya, waa kan akhiiran wuxuu weydiistay muraafaqataka fi ljanna buu yihi. waa nin yaroo himo sare leh, jannada inaan kugula saaxiibaa baan doonayaa buu leeyay. jannadana dee boosaska ambiyada iyo rususha iyo kooxdaasi meeshay gelayaan iyo haddiiba aada gasho muslimka caadiga ahi meeshuu gelayaa isku mid maaha. marka ninkana wuxuu dalbanayaa nebi maxamed inuu rafiiq la noqdo calayhi الsalaatu wasalaam. aw gayra dalik buu nebigu yihi, taa waxaan ahayn maad weydiisid, may taasaan doonayaa buu yihi. nabigu calayhi الsalaatu wasalaam markaa wuxuu ku yihi faacinnii calىa nafsika bikahrati sujuud, waxaad iigu gargaartaa naftaada sujuud badni, inaad salaada badiso sujuudda. haddaad maqaamkaa sare doonayso, idan maqaam ilciliyiin cidda raadcaynaysa waa in salaadeedu badataa, in salaadiisu ay badataa. nabigu calayhi الsalaatu wasalaam iyo saxaabadiisii siday u nooleyn jireen
أنس بن مالك واكت المام يسدي سبا نبيك وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته ولا نائما إلا رأيت بولي حديث بخاري. النبي عليه الصلاة والسلام مدون تدبوري أنا دركتها بينكي وقت كستا سقطت كنيا وادرك وقت كستا سقط هردنا وادرك معناه يدو حويان حق هرو كنت كنشري هدول دونه وحق الدنبه وكنت كنشري ودحده وكنت كنشري هبينكي ورنا دتكتو. ولذلك بقى عائشة حديث كلا الصحيحين كويا لواطله من كل الليل قد أوتر رسول الله هبين كودن قيب وراي كطهيب النبي قوة ترصدي هبين كحقي سهرين تانو سيحنين بقوة ترصدي هبين كبرتن كي سواو ترصدي هبين كدبيا قدي سنواو ترصدي فانتهى وتره إلى السحر بيتني واقي سيد دنبال لكن وحو بطيئن الصبحي يعني وقت قود دنبال هبينك إنه وترصدى أبو بطي. وأنا كي عمر لها قفكي شعل فضل بدنده والتي ينامون عنها أفضل تهبين كي الله سيحداينك فضل بدن تهيبو تلمامية قرآن كان واكا إلهي والمستغفرين بالأسحار هبين كي طبعا كان دمي محاتو كان دونتا أئمة بد وولي معاصرين تابا قاركود اسكو أدكيين ويرهدين كوب يتبنون موياني أما وقبضنا صدح يتبن موياني وحكا لما تكن كارو ninkan raba inuu sunnadii nebi maxamed ku daydo tiradun iyuu kaga dayanee tirada iyo sifadaba markaa ha ku daydo. yani nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam 11 13 9 ka yar intaba waa tukaday laakiin dee wuxuu tukan jiray teennan ma ahayn waa kuwii saxaabadii salaada ku xidhatay waa garanaysaa wixii qabsaday waa weyn oo saxaabiyiin ay yidhaahdeen waxaan ku hamiyey inaan ama ka baxo ama fadhiistiyo wax la mida. هذا واحد قياستا ركعت لغو أخريي بقرة يا النساء يا العمران صدح دا سورة دو مسجس شنجس مركا ركعت لغو أخريي شنجس قياس وهل ركعو شنجس مثال أخريا رضا اسكا عادي قال ولبا النبي وحي هيدين تو آيات كسكوت تاغو وولبا aayaddu hadday cadaabka warramaysa ilaahay ka magan galo oo hadday tasbiix ku saabsantay isagu sidaa dheer buu waday laakiin sidayna gaaban haddaynu wadno waa nus saac shan nus saac waa imisa 2 saac iyo badh ragcad loo taagay qiyaas haddaad hadhow tiraahdo may 12 buu tukaday ood 5 daqiiqo ku tukato oo tiraahdo aruu sunnadii baan raacay taasi sunna noqon mayso. sunnadu nebigu calayhi salaatu wasalaam ma badin jirin ragcaadka sida ka muuqata laakiin sifadeeda ayuu badin jiray. sidaa awgeed ayay caaisha waatii lahayd nabiga calayhi salaatu wasalaam ramadaan iyo keyrkii toona 11 ragco kama badin jirin 4 buu tukan jiray. hay weydiinin bay tidhi wanaaggeeda iyo dherarkeeda iyo baabka ayada hayga waraysanin dabeetana 4 kaluu tukan jiray wanaaggeeda iyo hay weydiinin iyo dherarkeeda kadibna 3 buu tukan jiray. فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. إذن أيها الأحبة ما ها قيام كيسو قرى واحد داري حديثك صحيحين كصار رمحوت المامية سجودي سو إن كنت نايضا الأخريا به كنت نايضا حوالي نص جس دو ده ويرتهي وجس ثلثي كنت نايضا يعني انتو تاغنا انكو ددوم بو هدنا ركوع سنان جري سيدا اوغيد صلاة النبي هداد ربطه واتا نوع عصيه اما ترق عدها بدن له علماء waxay leeyihiin hadii naqsi uu ka gala dherarkaasi inaad ragcaad ka badsataa oo salaatul leelku sideedaba waa mathna bay qabaan marka waa mutlaq bay qabaan saasan ay jamhuurul ulama ugu badan yihiin ama culimadii hore ugu badan yihiin إلى أحدهم وكسر نقلنا ابن عبد البر إنه لا أجمع العلماء وكان نقلنا إجماع وكسر نقلنا وهي علماء إلى هذا عبرض الترادة ما هرج عضها عبرض والزمن كاد له يرتاجنيت
والزمنك أما الرقعات كوبان كهر تاجنو أما الرقعات تربدا كهر تاجنو عبرد وحوي بين علماء وقبائل زمنك maxay ka daliishadeen waxay ka daliishadeen aayaadka ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nabiga ku tilmaamay qum illayla ilaa qaliila nisfahu aw inqus minhu qaliila aw zid calayhi warattil alqur'aana tartiila nabiga waxaa lagu yidhi habeenkii istaag in yar mooyaane markaas haddana waxaa la yidhi nuskii istaag ama in yar ka yare idan waxaa laga warramayaa xisaabtanka qiyaamku ku socdaa waa maxay waa zamanka la taagnaanaya bay leeyihin inta uu qofkani rabo inuu taagnaado waxay kaloo ka daliishadaan inay zamanka masaladu tahay xadiidkiisna saxiixeynka ku yaalay ee nebigu calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay soonna soonkii daawuud baa u fiicnaa salaada daawuud ayaa ilaahay u jeceliyay soonna kaasaa loo jeceliyay soonka daawuud wuxuu ahaa inuu habeen maalinna soomo maalinna afuro ama salaada daawuud maxay ahayd waxa uu ku tilmaamayaa kaana yanaamu nisfa alleyl inuu seexan jiray habeenka badhkii wayaquumu hulutha nabiyullaahi daawuud nuska hore waa seexan jiray dabeetana thuluth ayuu soo kici jiray oo tukan jiray dabeetana wayanaamu suduska dambe yacni nuska dambe waa thuluth iyo sudus la isugu geeyey marka nuska horena wuu hurdi jiray nuska dambena 3 meelood oo meel buu soo jeedi jiray 6 meelood marka habeenka loo qaybiyo meel ahaana wuu hurdi jiray marka xadiidkan isna wuxuu tilmaamay in zaman lagu xisaabinayo salaadii daawuud ee ilaahay jeclaa markii laga warramayayna lagama warramin intuu ragcadood tukan jiray ama siduu tukan jiray waxa laga warramay zamanka uu tukan jiray quraanka ilaahay markuu ka warramayana waxa la yidhaha aman huwa qaanitun aanaa alleyli saajidan waqaa'iman yaxdaru alaakhira aanaa alleyl baa la yidhi saacatu leyl ninka tukan saa daraaddeed ayaa ibnu xajar alasqalaani iyo ibnu taymiya iyo waxay leeyihin ina annaqsa fii sifati alqiraa'a yuzaadu fii cadadi rakcaat bay leeyihin naqsiga gala sifada qiraa'adaada gaabatay daraaddeed cadadka waa la kordhin karaa ولذلك baa culammadeenii hore muslimiinta ahaa qaar dhowr iyo 30 tukaday iyo qaar dhowr iyo 40 tukaday iyo xarameynka saasaa loo tukan jiray iyo wax la mid ah iyo dhowr iyo 20 sida awgeed haddaad isleeday sunnadii dabaqna tii nebiga mid u eg tuko salaad gaaga aan tiro badnayn laakiin sujuud dheer oo qiraa'o dheer oo sifadii nebiga leh calayhi salaatu wasalaam haddaanad sifada u tukanayninna haddaad badsan karto badso wixii aada badsataaba ee nabiguna calayhi salaatu wasalaam waa ka ninkaa dhallinyarada markii uu lahaa xagga sare haddaad rabto inaad timaado faacinii calaa nafsika bikahrati sujuud baa la yidhi sujuudda badi sujuudda la badiya waa salaad la badiyey man qaama maca alimaami xataa yansarifna waa la yidhi marka intaad doontaba tuko 23 sheekh albani waa daciifiya culamo kalena waa saxiixisa waa haabit bay sanadada ku tilmaan ayan kan khilaafka fiqiga waxba idin gelin maayo laakiin habeenka 10ka habeen intii aad nooleyn karto noole habeenka intii aad nooleyn karto noole nooleynta ugu yari waa inaad labada salaadood horta koow jamc ku tukataa waa xadiidkii cuثmaan laga warinayay imaamu maalik iyo imaamu muslim ba ay soo saareen iyo abu daawuud ba iyo tirmidi labadoodna waa soo saareen faadun baa kala yara gedisan waa ka tilmaamaya samictu rasuula allahi sala allahu alayh waalihi wasalam yaquul man salla alcishaaa fi jamaacatin fakaannamaa qaama nisfa alleyl waman salla subxa fi jamaacatin fakaannamaa salla alleyla kulu riwaayada muslim riwaayada abu daawuudna wuxuu tilmaamaya man salla alcishaa walfajra fi jamaacati kaana ka qiyaami leylihi calaa kulli xaal way isfasirayaan une haddaad jamaca haleesho cishaha waxaad u dhigantaa nin habeenka nuskii soo jeedo tukanayay haddaad subaxa dambe haleeshana waxaad u dhigantaa labadiiba markaad haleesho habeenkii oo dhan nin nooleynayay taa macnaheedu waa maxay marnaba yay dhicin tahajud inuu salaad subax jamceed kaa kaxeeyo dadka badh baa sunnada u dadaalay hadhow baa jamacii subaxu dhaafaya kaas wax badan maad kororsan baynu odhan karnaa labada waxaa
kaaga ugu yari waa inuu noqdaa labadaa jamac inaanay horta ku dhaafin. haddaad rabto habeenkaa inaad noolayso ugu yaraan horta jamaca subax iyo jamaca cishe, labada jamac ee salaada jamacu waa inaanan ku dhaafin. wixii kale aad markaa tukan kartee ku noolayn kartana ama taraawiix u bixi ama tahajud u bixi ama qiyaamuleyl u bixi, magaca doonta adigu u bixiyo wixii aad tukan kartee kalena markaasi tuko. acmaasha jaliilkee uu nebigu samayn jiray 10kan habeen sida uu nusuusta qaar ku soo aroortay waxaa ka mid ah inuu ehelkiisana kicin jiray. asliyanba dee ilaahay wuxuu yihi waamur ahlaka bisalaati wastabir calayha, laakiin dee salaadii faralka ahayd bay taa hore ahayd. laakiin tan sunna ahna waa kii xadiidkii sheekheynku warinayeen tilmaamayey intuu gurigii wiilkii uu sodaga u ahaaye inantiisii intuu tegey alaa taquumaani fatasalliyaan uu nebigu lahaa, war ma kacdaan meedan kacayninoo salaada tukanay nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam. ama umu salama xadiidkii fitanka ka warramaya waa tii lahayd habeen buu nebigu soo kacay isagoo argagaxsan, dabeetana wuxuu ihi subxaana allahi maada unzila min alleyli min alkhazaain wamaada unzila min alfitan. ilaahay baa xuma ka dheere caawa maxaa fitan soo degay iyo khasnadaa ilaahayba wanaag ka soo degay. yaa kiciya buu nebigu yihi kuwan guryahan hurda, isagoo haweenkiisa u jeeda si ay u tukadaan buu nebigu yihi likay yusaliin ruba kaasiyatin fi dunya caariyatin fi laakhira. caaisha waxay leedahay wakaana yuuqidu caaishata idaa araada an yutir, marka uu rabo inuu witirsado caaisha nebigu calayh salaatu wasalaam iyana waa kicin jiray. calaa kullin 10kan dambe guriga oo dhami inuu tukadaa fiican. hadaad reerka oo dhan kicin karto ay tukan karaan wixii tukan karaa inay wuxuun ka tukadaan, marka ama xagga hore ha ka tukadaan oo hadday sii qadintaanna waxba ka xumaan maayaan, hadday dhexda ka tukadaan intay toosaan haddana seexdaanna waxba ka xumaan maayaan, hadday xagga subaxa xigta intay kacaan tukadaan oo hadhowna subaxdoodana ku darsadaanna iyana waxba ka xumaan maayaan. saddexda dhinac dhinacu doonaba waa laga tukan karaa. culamada qaar baa laakiin yidhahdaa tahajud ereygaa haddaad isticmaasho xadiid saxaabi bay soo qaataan oo ah wuu seexan jiray oo tukan jiray oo seexan jiray oo tukan jiray dhowr goor ku celceliyay erayada. marka wixii la seexdee la tooso ayuunbaa tahajud la yidhahda bay dhahaan. marka isagu wuxuu diidan yahay habeenkao dhan haddaad iska soo jeedo sida kaasoo kale tahajud ma la odhanaya calaa ra'yihi, marka kaasi tahajud maaha ee waa qiyaamuleylkii un. calaa kulli xaal alfaada tani macno badan samayn mayso inaad tidhahdo waa tahajud iyo waa qiyaamuleyl iyo waa taraawiix inaad tidhahda macno samayn. waxa macno samaynaya waxa weeyaan inaad ilaahay u kacdo tukato, adigu dhankaa doonto ka tuko ama waxaba wada kac ama qeyb kac inaad tukataaba fiican. 10kan u dambeeya waxyaabuu nebigu samayn jiray calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ah shadda mi'zara, oo haddaynu qaadano tafsiirkii ah walaa tubaashiruuhuna waantum caakifuuna fi lmasaajid. alla mubaashiroonina baa la yidhi idinkoo maxay masaajidka jooga, marka inuu ictikaafo. cabdillaahi bnu cumar xadiidka uu warinayo saxiixa waa kale kaana rasuulu llahi sala allahu alayh waalihi wasalam yactakif alcashra alawaakhira min ramadaan. caaishana xadiidka saxiixeynka ku yaalla waxay leedahay kaana nabiyu sala allahu alayh waalihi wasalam yactakif العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده. رواية كلو بخاري ورني أنا وحيلاد أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في العام الذي قبض فيه 20 يوما. إنه نبي اعتكاف جري. اعتكافك وامحي اعتكافك وإن المساجد كيسكو حده محل اسكا حديا waxaa la iska xidhayaa wixii mubaaxa ahaan jiray marka hore ee dabadaas suuqa iyo joogistiisu marka hore mubaax bay ku ahay, gurigaaga iyo hoyaatinkiisu mubaax bay ku ahay. kaas baad ka soo xidhmaysaa. maxaad u xidhmaysaa? cibaada maxdiya. dadka barh baa intay ictikaafaan sheeke iyo mobile iyo baabka ku jeeda oo maxaad ka soo xidhaysay markaa? waxaa lagaa rabay inaad dabadda uga timaadaa waxay ahayd inaad adduunka kale iskaga tegtid, ilaahay uun inaad la munaajoogtid khalaas. wixii kaleo dhan intaad iska dhaafto
ilaahay subxaanahu wa tacaala munaajaadkiisa inaad u baxdid. marka ictikaafku waa in masaajid la galo oo dabeetana lagu ictikaafo, salaadaha ku tukatid, qur-aan ku akhrisatid, adkaar iyo awraad wadid, salaad tukatid, wixii cibaadaadkaasiya uuna inaad shaqadaadu noqoto, wixii aan cibaado ahaynna inaad shaqadeeda iska dayso. marka waa inaad huruddo, waanad hurdadana badsanaynin. sideedaba ramadaantu calaamaadka ay leedahay waxaa ka mid a bay culammadu yidhaahdaan laba wax oo bini aadamka mushkilad ku ah baa laga yareeyaa. cunadu kow, innaga marar baaba cunada ramadaanta la cuna ka badataa tii waktiga kale la cunayay. ramadaanka waa in miisaankaagu dhinmaa, ma aha in miisaankaagu kordho. ramadaan waa in miisaankaagu hoos u dhaca. yacni waa inaad barataa inaad cunada ka maarmi karto. isku day bal ramadaan ثuluثu liطacaamihi iyo cala alaqal fain kaana laa maxaala buu nebigu yihi. markii hore waxaa la yidhi ukaylaatun aw luqaymaatun yuqibna salba, wax un la rurmooyin uu dhabarka ku toosisto. laakiin nebigu wuxuu yihi fain kaana laa maxaala, haddii aan laga tegayn in wax la cuno, cunadaadu calooshaada markaad 3 meelood u qaybiso meel ha noqoto. oo macnaheedu waa maxay? cunada gaajada iskaga jebiyo ka kac. inagu ilaa dibirto mooyaane kici mayno. dibiradu kuma jirto ee waxa weeyaan inaad gaajada iska jebisid 3 meelood oo meel inaad cuntid, meelna inaad biyo ka dhigatid, meelna in linafasihi inaad ka neefsatid. oo dee sababada laga neefsadaaye, laakiin haddaad xoog u dheregto calooshu waa elastica way kala baxdaa. diaframka xubkan yare u dhexeeya sababka iyo calooshay kor u soo qaadaysaa, dabeetana sababkaa cidhiidhiyoomaya, markaa waad neef qabatoobaysaa, meelay neeftii gasho la heli maayo. idan nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam 3 meelood oo meel la cuno ku rido, meel la biyo ka dhigo, meel la ka neefso. siiba ramadaanta dadka taraawiixaha iyo waxa kale mararka qaarkood way ku cuslaadaan, waayo afurkay si qayb caadiya u cunaan. waa la gaajaysnaa, hamuuntunbaa lagula dhacaa. hamuuntaa control. ramadaan ba waxaynu ka rabnay ee ugu waaweyn waxa ka mid a inaynu naftan u talin karno. naftan in loo talin karo oo baahida ugu weyn ay qabta waa cunne. cunadeeda haddaad maamusho waxeeda kalena waad maamuli karaysa. baahida ugu waaweyn ay qabta waa cunno. haddaad cunadeeda ka talin karto waxay cunayso iyo waxay iska daynayso, waxeeda kaloo dhanna waad ka talin kartaa. si awgeed 10kan waxa fiican inaad ictikaafto. haddaanu kuu wada suurtoobayn ka war, shardi maaha. wixii kuu suurtoobayo inu ictikaaf. hadday maalinta barhkeed kuu suurtoobayso cala almadhabi shaaficina dee isagu saacadaa la ictikaafi karaaba la qabaa. marka wixii kuu suurtoobayo waa un markaad soo gasho niyada xidho inaad ictikaaftay ku jir. xataa 2 salaadood oo qudha dhexdoodna ha noqoto, xataa 1 habeen ha noqoto, 2 habeen ha noqoto, maalin baad shaqo u baxday waad soo noqotay, dib unu xidho. hays odhanin haddaana 10 kaba fadhii karaynin adigu sanadkan ictikaafi kari maysid. hays odhanin habeen baad ictikaafi kartaa, 10 baad ictikaafi kartaa, 2 baad ictikaafi kartaa. waa calaa qowlkaana waxaabaad ictikaafi kartaa saacado. saacado habeenkii ka mid iyo saacado maalintii ka mid kuu doonaya ha noqdo, labada waad ictikaafi kartaa. marka habeenkana wuxuun ka niyeyso, walow inta taraawiixda la tukanayana aad niyeysatana. oo markaad cishaa soo gasho aad xidhato niyeysato, bal ilaa iyo intaad 9 iyo barhka waa 2 saacadood baa laga yaabaa inaad joogayse. kolaad 2 saacadood ictikaafku u noqotana ictikaafka niyeyso. 10kan dee shayga ugu qaalisan ee ugu dambeeya aynu tilmaamaynaana waxa weeyaan inaynu habeenkii raadcayno la tilmaamay. leylat اlqadr iltamisuuha fi اlcashri اlawaakhir waltamisuuha fi kuli watrin. wuxuu nabigu yihi calayhi الsalaatu wasalaam 10ka dambe ka baadi doona, weliba witirkeedana kasii baadi doona. 10kaa inaynu aada u raadcaynaabaa muhima. oo 10kan habeen waxaynu gaarka muhiimadda u siinaynaa. habeen baa ku jira 380 sano iyo dheeraad u dhigma. 380 sano iyo dhowr bilood oo cibaadaha ka war. xataa adigu haddaad 380 sano markii hore soo jirtay
intaad cibaadaysanaysa imisuu ahaa 24 saacadood waxaa laga yaabaa 7-8 saacadood inaad hurdo 7-8 saacadood inaad shaqo tagto haddaad 8 kaloo dhan cibaadaysanaysay waa ثلث cibaadadaas haddii 8 kaloo dhan cibaado lagu turiyo waa ثلث laakiin halka kani waa 83 sannadood iyo weliba dhowr bilood 4 bilood ama wax ka badan 4 bilood iyo maalmo la sheega 83 sannadood cibaado ah inay kaa dayacantaa waa doqonnimade waa khasaare aada u weyn ka waran nin cimrigiisii 83 sano khasaaray waa dhib aada u badan weliba 83 ku ay yihiin 83 cibaado aanay ahayn 83 layska noolaa un aan ahayn idan habeenkan waa habeen noloshaada wax badan ka bedeli kara saa daraaddeed habeenkan baadidoonkiisa waa inaad mar kasta u xidhxidhantay habeenkan see loo baadi doonaa cibaadaa lagu baadi doonaa inaad ilaahay si fiican ugu xidhantay caaisha maxay tidhi ilaahay nebi allow haddaan laba kulmo habeenkan alla isulan siiyo maxaan idhaahdaa bay tidhi waxaad tidhaahdaa allahuma innaka cafuwun tuxibu alcafwa facfu canii buu nebigu ku yidhi calayh isalaatu wasalaam allahuma innaka cafuwun tuxibu alcafwa waxay tilmaamaysaa habeenkaa waxaynu ugu baahida badannay inay ilaahay baryadiisa tay oo ay ugu horeyso in ilaahay dembiga inaga maydho oo ay ugu weyn tahay aakhiro inaynu guulaysano habeenkani markaa waa habeenkaa uu qur-aanka ilaahay ku sheegay leyla mubaaraka inuu yahay fiiha yufraqu kulu amran xakiim inuu yahay maxay khayru min 1000 shahr mid ka khayr badan 1000 bilood inuu yahay waa habeen fadiiladiisu dee si hayru caadiya qur-aanku uu tilmaamayo taasi markaa macnaheedu waxa uu sheegayaa inuu nebigu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam habeenkaasi man xurima khayraha faqad xurim buu nebigu yidhi ninka laga manciyo ninka la haleeshiin waayo ninka la solin waayo khayrkeeda kaasi waa dee waa khayr beelay weeyaan faqad xurim kaasi waa nin khayr beelay habeenkaa ninka khayrkeeda waaya ayuha alaxiba intaa waxaa raaca qur-aanka iyo akhriskiisa adkaartii inaanad ilaabin siibaa adkaarta ay ku soo aroortay nusuusta fadliga badan u sheegaysa subxaana allah alxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar walaa xawla walaa quwata ila billah astaqfir allah subxaana allahi alcadiim subxaana allahi wabixamdi adkaarta nusuusta qur-aankii ku soo aroortay iyo nusuusta sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaamba oo qur-aan dabadii wax la akhriyo iyaga u fadli badan qur-aan dabadii wax la akhriyo iyaga u fadli badan waana nebigu ku tilmaamay inay yihiin carabka kuwa ku fudud alla agtiisana laga jeceliyey miisaankana ku culays badan oo 3 sifo 3duba cajab qabaan in la yidhaahdo carabka oo ku fudud oo dee subxaana allah alxamdulilah subxaana allah alxamdulilah haddaad tidhaahdo wax lagu xiiqana maaha halkii minitna 100 jeer baad odhan kartaa subxaana allah halka minit 100 jeer baad odhan kartaa 100ka jeerna xadiidkii nasaa-i alyowm waleyla ku yaalay muxuu sheegayay markaasuu wixii 100 yidhahdo ama 100 halaad buu leeyahay xadiis caynkaasaa jiraa filaya weliba xasan culamada qaar kusii tilmaamaan calaa kullin fadliga ku soo arooray waa tiro badan yihi marka aanad qur-aanka akhriyayna tusbaxaaga rog wardigaaga wadoo maxay subxaana allahdaas iyo laa ilaaha ila allah iyo kuwaasi weliba iyagu waxay kaga cajab qabaan oo qur-aanka kaga gedisan yihiin iyaga fii kulli lxaalaat baa la akhriyaatee wayse uma baahna oo janaabo laga maydho uma baahna oo wakti uma baahna oo xifdi uma baahna oo waxbaba ay u baahan yihiin adoo galgalanayana waad akhriyi kartaa adoo fadhiyana waad akhriyi kartaa adoo soo jeedana waad akhriyi kartaa adoo weyse qabana waad akhriyi kartaa adoon weyse qabinna waad akhriyi kartaa waa kii nebigu calayhi salaatu wasalaam ninkii ku yidhi sharaa'ic ulislaam ay igu tiro badatay
waxaad ii sheegtaa shay-un atahabbatu bihi buu yidhi atashabbathu bihi midaan ku dhago uun ii sheeg buu yidhi wuxuu nabigu ku yihi calayhi salaatu wasalaam laa yazaalu lisaanuka ratban min dikri illah carabkaagu yuu ka engegin ilaahay dikrigii ha ku qoyanaada uun waayo dikrigu waa waxa quray adigoo shaqooyin kaloo badan hayana raggaan qur-aan ka qaybsanayn waa shaqo kastoo aad haysto wardigana waad iska wadi kartaa xataa gaadhigaaga markaad wadato wardigaaga waad iska wadi kartaa marka waa khafiif cala lisaan xagga allena waa laga jeceliyey miisaankana waxaa la yidhi waa ku culus yahay miisaanka aakhirana waa wax cuslaynaya ama dunuubtaadu hadday zabadulbaxri leegtahay waa lagu masaxayaa buu nabigu ku tilmaamayay idan habeenada tobankan dambe maalintiina waa la wardiyi karaa maalintiina waa la soomi karaa laakiin habeenada fadli badan habeenka ayaa fadli badan marka habeenkii intii aada wardiyi karto iyo intii aada tukan karto iyo intii qur-aan aada akhriyi karto iyo intii aada ictikaafi karto badso shayguna dee marka uu gabagabada joogo waa huubada lagama tage waa lasii gebagabeeyaa marka ramadaan waa aakhirkeedii baynu joognaa mid dambena inaynu gaari doonno cidina garan mayso hays odhanin dhallinyaraatay curdankaba uu ku cunaabay soomaalida laga sheegay yacni ma laha geeridu yar iyo weyn ma leh qof weynina waa dhintaa qof yarina waa dhintaa sidaa awgeed ramadaan dambe cid garantii haysataa ma jirto nabigu calayhi salaatu wasalaam salaadda markaad tukanaysaan baa la yidhi waxaad tukataa salaata muwadici sidii nin dunida ka tegaya tii kuugu dambeysay haddaad tahay saad u tukan lahayd waxaad ka soo qaadaa ramadaan tii kuugu dambeysay inay tani tahay ilaa ta dambe garan mayno inaynu tegi doonee tii kuugu dambeysay hadday tahay sidii aad usii daba goosan lahayd usii daba gooso wasala allahu calaa nabiyina muxamedin wacala alihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin